Bayaal maxaad kala socotaan dagaalka ka dhex qarxay Baabuje iyo shiiqa hadda cusub imaaday social media asigoo dagaal culus ku hayo dadka caanka ka ah barta social media isticmaalaan asigoo fariimahaas culus ku soo gudbinaya YouTube-ka shiiqa hadda uu sameystay sidaas darteed arrimaha hoosaad soo dhacdhacaya ayaana soo gaaray shiiqa wuxuu arrimahaas culus iyo hadallada culus uu ku takrifalayo dadkan social media gaar ahaan Baabuje hadallada culus uu ku dhahay ayaa ka mid ah shiiqa inuu caanimo doonayo iyo muuqaaladiisa in ay u kala kacaan shiiqa oo loogu bartay masaajidka khudbada markii salaada laga baxo meeshuu ka wacdin lahaa hadallo culus oo laga filaynin ku bedelay booskooda oo caajay Baabuje waxaa leeyahay ilaa caafiyo Baabuje oo xanuunsan asxaabay aragteen asigabo lug uunan ka socon karin oo bartiisa TikTok-ga ugu barateen arrimo shactira iyo YouTube-kiisa ayuu ka aflagaaday shiiqaas asigoo ku takrifalayo Baabuje uu dhahay hantida haysatid ha u isticmaalin in aad dadka ku faantid shiiqa oo hadda caanimo raadinaya ayaa dadka caanka aad u weerarayo afkiisa ku duqeynayo weliba masaajidka Ilaahay Baytullah loogu talagalay in dadka lagu waaniyo meeshii ayuu caatin ka bilaabay bal asxaabay waa wadaad cusub oo soo baxay waa waji kale oo social media yeedatay dad badan ayaa isweydiinaya wajigan cusub oo social media hadda la soo baxayna intuu ka yimid bal akhyaare muuqaal ayaan idin haynaa muuqaalkana isla daawano oo dhahayo shiiqa Baabuje uu ka hadlayo bal ma ogni meeshuu Baabuje kala jaan qaaday wadaadkan hadda khamiiska soo gatay oo haddana garka soo cimaamaday meeshuu kala jaan qaaday ma sheegi karnee bal muuqaalkan isla daawana asxaabay soo dhawaada akhyaarta nin la yiraahdo Baabuje ay aad moodo inuu wanaaga hadduu sameeyo uu xanuunsanayo su'aal baan rabaa inaan weydiiyo dadka baraha bulshada ku jiro Baabuje shahaadadii YouTube-ka mar hore u qaatay masaajid dhexdiisa waxaad igu aflagaadeysay masaajid dhexdiisa waa Baytullah waxaad igu tilmaamtay inaan ahay qof jaahil ah waxaad igu tilmaamtay qofka inaan xumaan gudbiyo waxaad igu tilmaamtay inaan xaaskayga bulshada dhexdeeda aan ku mashquuliyay taasna waa qalad aad adiga iga gashay muuqaalka soo daawatay akhyaaray waad mahadsan tahay bal halkan su'aal ayaa noo taalo imise ayaa ka dhiman bisha barakeysan ee Ramadaan su'aashaad jawaabteeda commentiga noogu wadaag fadlan waa naga codsi janaalkana subscribe noo dheh oo gambaleelkana u furo